asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa walaalkiin axmed daljir oo idin leh soo dhowaada. barnaamijkani waa barnaamijkii labaad ee ahaa soomaalidu haldoorkeeda kama faa'iidaysato. haddaba wuxuu isweydiinayaa shakhsi walbaaba waryaa dhibaatada soomaali maanta dhex taalla ka saari kara. soomaaliyu waxay u baahan tahay cadaalad, karti, aqoon, ammaano. run ahaantii sida aan ognahayba soomaalidu waxa ay ku kala tagtay waxaa ka mid a cadaaladdiioo yaraad, khiyaano ee dadka soomaaliyeed waa dad isjecel, ismana necba. run ahaantii shakhsi walba oo soomaaliyeed qalbigiisa waxaa ku abuuran mar uun waad heli doontaa cadaalad, waad heli doontaa hoggaan wanaagsan oo qiimo badan. haddaba haddii aan aamusno oo aan indhaha ka fiirsanno maantay waxyaabaha isdaba socda oo aan lahayn xibin wanaagsan oo laga qaato, soo ma noqonayno dad jiilka ka dambeeya uga taga dhibaato fara badan. waxaa muhiim ah inaan u wada istaagno shakhsi walba oo soomaaliyeed oo waxgarada, rag iyo dumar, duqeey iyo dhallinyaro. waxaa loo baahan yahay inaan u wada istaagno sidii aan u badbaadin lahayn dalkeenna. run ahaantii sida aan ognahayba siyaasiyiinta soomaaliyeed ee maanta is haysta iyagii farqaha iska laalaada inaysan soomaali aysan wax guula aysan u soo wadin way muuqataa. dhaqaalo ayaa waddanka soo gala, gudihiisa iyo dibaddiisa meeshay doonaan ha ka yimaadeen. haddana si cadaalada looma maamulo. dhulkeennu khayraad fara badan ayuu leeyahay, haddana dano gooniya ayaa laga arkaayo wixii shacabka soomaaliyeed si dhab ah wax ugu faa'iideynaya indhaha ayay kala yihiin madaxdeena. haddaba in intee la-eg ayaan aamusnaanaynaa haddaan nahay shacabka soomaaliyeed? in intee la-eg ayaan xamili karnaa dhibaatadan baahday, siyaasaddan jahwareerka ku dhacday, dalkan burbursan iyo dadkan abaaruhu ay isaga soo daba noqdeen oo maanta u baahan dalkoodoo qaniya ciddii horumar wanaagsan gaarsiin lahayd oo ilaahay dartiis uga saari lahayd maanta dhibaatadii ay ku jiraan. runtii ilaahay wuu noo sheegay qur-aankiisa ayuuna noogu sheegay haddii aad ka raadisaan cadaaladda meel kale inaan laga helin, haddii aad ka raadisaan horumarka meel kale inaan laga helin, haddii aad ka raadisaan ilbaxnimada meel kale inaan laga helin. ee laga helayo qowlullaahi tacaala waqaala rasuulullah, rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam axaadiista uu nooga tegay iyo qur-aankeenna kariimka ah oo ilaahay qowlkii ilaahaya. ma sidaan ayaan ahaanaynaa? ma ku qanacsannahay inaan sidaan ahaano? rumaantii anugu waxaan aaminsanahay shacabka soomaaliyeed oo dhan inay ku wada qanceen 99% inay ku qanacsan yihiin maanta sidaan in la ahaado. sababtoo ah dadku waxay samayn lahaayeen isbeddel ayay samayn lahaayeen, waxay raadin lahaayeen haldoorka ku dhex jira oo ay ka faa'iidaysan lahaayeen soomaalidu, waxayna isku dayi lahaayeen inay ka faa'iidaystaan haldoorkooda. run ahaantii waxaan anigu aan kula talin lahaa shacabka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan inay raadiyaan haldooradooda ka buuxa ayna ka faa'iidaystaan. waayo haldoorku khilaaf ma dhalinayo, rabbi buu nooga cabsanayaa. haldoorku xoolaha shacabka ma lunsanayo, ilaah buu nooga cabsanayaa. haldoorku dadkan qiimahoodii oo baaba'ay, diintoodii ay baaba'day, dadnimadoodii oo baaba'ay, dalkoodii oo baaba'ay, waxay isku dayayaan in ay meeshaan meel dhaanta ay geeyaan. insha allah wayna geyn doonaa, xilli ay noqotana way qaban doonaan hoggaanka dalka. innaguma waxaan ku qanci lahayn oo aan ku qanci karnaa in aan aragno iyadiyo dalkii uu hagaagay oo wax walbaaba ay sidii la rabay oo wanaagsanaayo ilaahay raalliga uu ka ahaa ay u socdaan, mise inaynu indhaha ka fiirsanno oo sidaan aan jiilka naga dambeeya annagu aan ku dhaafno, iyaguna maaragtay burburka iyo dhibaatadan ay saameyn kale ay ku sii yeelato. run ahaantii sidaan ognahayba soomaali waxaa la dhihi karaa markii loo qaybiyo 4 qayb ka mid a waxay jiraan dibadda oo dalka ma ay joogaan. waxa ka ceyriyana waa dhibaato. dadkaas oo dhan way soo noqon lahaayeen haddii dalkooda oo system iyo kala dambeyn iyo wanaag ay ku arkaan. laakiin waxaan nahay ummad weli guuldarrada aqbashay oo haddana aan u diyaarsanayn inay ka baxaan. taasina waxay noo tahay dhibaato weyn. inaan gacmaha isqabsanno waa wax aad muhiim u ah. haldoorkeenna aan raadino waa wax aad muhiim u ah. madaxdeenna hadda is haysata inaan nidhaahno waxba nooma haystaan, idinkaaba is haystaba. dad iyagii is haysta miyaan annagu wax ka sugaynaa? maya kama sugayno. leannu shacabka soomaaliyeed wuxuu leeyahay hal dan, halkaas dan oo ah in la helo kala dambeyn, amni sugan iyo waddan dhisan oo khayraadkoodii la soo baxa, oo diintoodii iyo dadnimadoodii iyo cirdigoodii ilaaliya, oo dadka soomaaliyeed ay u wadaysaman yihiin oo cid goonihii aysan gooni u haysan. si kastaba ha ahaatee arrintu waxa ay hoos taallaa waa shacabka soomaaliyeed. haddaan sidaan indhaha isaga sii xirnana waddankeennu sidaan ayuu weligiis jahwareer
ugu jiri doonaa bal aan idhaahdo 4 kelmadood madaxdaana wareerisay anigiyo matalaya shacabka Soomaaliyeed. Bismillaahi raxmaani raxiim. Gabaygan waxaa la yidhaahdaa maxkamad, waxaana lagu maxkamadayn doonaa madaxdii dalka iyo dadka iyo diinta intaba wax u dhinta. Insha allahu waxayna ku mutaysan doonaan adduunka dushiisa, aakhirana way u dambaysaa. haddii uu mutaysto wanaagna insha allahu waa lagu ammaani doonaa, aakhirana way u taallaa abaalmarinteeda. haddaan gabaygiina wuxuu ku bilowday sida tan: miinley haddaan meeris gabay milicsadoon eego oon macneeyo suugaanta way marin habawshaane milgo kuuma laha maalintaad ehel ku moostaaye haddayse mooleydinkii qalqiga maxabba kaa hayso cidna kuma mudida gacalada waad maslaxataaye anna waxaan ka maalaa qalqigu meesha uu rabe mowlow allahayow midee magaca Soomaali muslimiin sunniya waan ognahay kalama marmaane muqdishiyo hargeysiyo allow bari la maamus inkastoonan magacaabi karin madal walboon joogno muhiim bay inoo tahay inaan wadajir maallaaye marwe iyo ninkeedu siyaan ehelka loo maagin maandhe iyo abtow iyo haddaan seedi laga maarmin musuq maasuq inaan diidno oon wada mataanuno mugdigiina galay iyo wixii murug lasoo dhaafay mowle idinka waa laga gudbo muuqay calankiiye adinkay maslaxaddiin tahaye meel u wada jeesta. afartaas macneeye haddaan miinka ka hikaaji halkii uu mudnaa iyo anoon seegin marinkiisa iminkana macaashkii arlada madasha aan keeno badda mudan macaaniga ku jira moolka lagu aasay macdantiiyo saliiddan dadiyow ceyrta laga maagay miro wada macaaniyo qudaar way mushaaxaya manfac xoolo caanaha ka maal hilibna mudmuuso innaguna macluul baan ka nahay migan adduunkaa Soomaalaay ismaamula qabiil magacsa noo diidi haddii madax bukado jiirta kale waa milgala'aane maskax talisa madaxan qabiil meesha lagu keenin baarlamaan mugdiga naga baxsho meel u wada jeeda shacab mudan malaayiin canshuur miiska wada saarta adigaa adduun maamulee mowla nugu aadi muwaadiniinta aan soo xulliyo madaxweynteenna muddo gaaban unbad kursiga maxalli saarnaane adinkoo milgale oon shacbiga meel u kala jiidin marxabeeya duul kale haddaan madaxu soo duubno haddii kale adoo meyd socdaa dunida meerayso qofkaad magansantana inuu ku dili muran la'aan weeye midiyow farriinteeda qaad meel kastana geedhe musuq maasuq kii lagu arkow madaxu ku xiran shacabka maxkamadaas xugmiye waadna maqashaane bal miinooyin noocaas haddaad miirqab noqon doonto haddaad si noo macaantoo qalqigu maxabbo ku haayo mudana joog ayuunbaad maqliye qabo maqaalkeenna mudana joog ayuunbaad maqliye qabo maqaalkeenna.